وادول أي دبيلها دبانيا كودي بيان شيكوين شامرير له وحيبها وآدنو قصو أرورو هالكاني وصوماليا dhul hidda u leh ganacsiga berbera muqdisho taniya saylac ganacsatada Soomaaliyeed waxay si wada jir ah u laba shubayaan wadaanta horumarka wadal hodan ku ah khayraadka dabiiciga ah sida xoolaha fooxa sisinta iyo argoosatada tiyo ay u dheeryihiin fursado dihan ganacsiga waxa gundhig u ah kalsooni halka ay dadweynaha kale xuduudo isku koobeen Soomaalidu waxay iba fureen xiriiro soodimaha ka talaabay taageerada midowga Yurub awgeed waxa la hirgeliyay wadooyin 110 kiiloomitir oo isku xira suuqyada kanaalo 312 kiiloomitir ayaa dib loo howlgeliyay kuwaas oo hiil u noqday 3400 oo beeraley Soomaaliyeed ah dakhliga beerahana waxa uu kor u kacay 67% halkani waa Soomaaliya dhul hal abuur halgan yahay waa dal ku suntan teknoolajiyada waa dalkii dunida kaga horeeyay isticmaalka lacagaha taleefanada gacanta ganacsigu waa isha in ka badan 70% shaqooyinka taageerada midowga Yurub awgeed 17,000 oo dhalinyaro Soomaaliyeed ah ayaa maanta leh xirfado ay hamigooda ugu rogi karaan mashaariic miradhal leh halkani waa Soomaaliya dal marliicay haatanna hiigsanaya hilinkii guusha